maanta waxaan soo gaarnay magaalada Gaalkacyo anagoo ka kooban wafdi isugu jira dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad iyo shaybaaristayaal. ujeedada ugu weyn ee maatinkeena magaalada Gaalkacyo wuxuu ahaa anagoo u sidnay magaalada qalab caafimaad oo sida aad la wada socotaan aad muhiim ugu ah cudurkan safmareenka ah ee adduunyada saameynta ku yeeshay ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano. waxaan rajayn doonaa in agabkaas kala duwan oo u badan agab aad muhiim ugu ah ka hortagga cudurkaas inuu wax oo bilaaw ah uu ka tari doono qaybaha kala duwan ee u baahan in lagu la tacaalo cudurkaas. waxaan si gaar ah rabnaa inaan ugu mahadcelino qaybihii kala duwanaa ee sida weyn noo soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland iyo sidoo kale isku duwaha caafimaadka gobolka Mudug ee dhanka Puntland iyo sidoo kale isku duwaha caafimaadka gobolka Mudug ee dhanka dawlad goboleedka Galmudug. intaas aan rabay inaan ku soo koobo warbixinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saad ogtihiin maanta waxaan ka gudoonnay annagoo ah bahda caafimaadka labada qaybood Puntland iyo Galmudug agab aad iyo aad runtii muhiim u ah oo aan isleenahay magaalada Gaalkacyo way ugu baahan tahay xanuunkan aan Ilaahay ka baryaan inuu naga qaado coronavirus ama COVID-19. runtii mar labaad ayaan u mahadcelinayaa tiimka walaalayaal ah oo noo soo gurmaday oo dadka walaalahood gaar ahaan gobolka Mudug guud ahaan gaar ahaan magaalada Gaalkacyo aan joogno aan kala wareegnay agabkaas soo sheegay walaaladeero dhakhtar deero uu ku mahadsan yahay. waxaan leenahay jazaakumullah khayr dhamaantiin adinka iyo ciidanka wakiilka tiimba waa idinka ajiibnay qalabkaas iyo agabka caafimaad annagana sida mas'uul ku jirto waxaan u mahadcelinayaa dhammaan wasaaradihii caafimaadka ee Puntland iyo ay runtii wasiirka wakiilka ahaa oo xiriirkaas wax ku lahaa iyo wasaaradda dhexe federaalka runtii hadda marka koowaadna maaha dhowr jeer ayaa naga soo gaaray agab caafimaad noo soo mariyeen wasaaradaha. waynu ka gudoonnay waynu ka ajiibnay adeegga walaalnimo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah ay soo dhiibtay iyadoo u soo dhiibtay dowladda Puntland iyo Galmudug anigoo ka hadlaya afka gudoomiyaha gobolka Mudug maadaama gudoomiyihii Galmudug isxal uu ka maqan yahay anagu waanu ismatalaa madalaha iyo goobaha intuba anigoo afka isxal ku hadlaya ayaan u mahadcelinayaa Dr. Doro iyo tiimkiisa. runtii waa baahi jirtay waa adeeg aad u fara badan oo kala duwan oo ka hortagga xanuunkan COVID-19 ku saabsan maahan markii ugu horeysay oo deeq noocaan ay timaado tiro ka 3 jeer baan filayaa in xanuunkan intuu jiray waa la tacaalid iyo ka hortagid iyo in cudurkiisa guud oo mas'uuliyad ku dheehan tahay dal iyo dibadba ummadda Soomaaliyeed oo wasaaradda caafimaadka ah iyo kormeer u yihiin ay ku wada shaqeynayaan. waan uga mahadcelinaynaa runtii xilli munaasib ah adeegan keeneen labada isku duwe oo runtii iyaga laftigooda wacyigelin fara badan xanuunkaas si uusan u faafin ka shaqeeyay oo isku duwe Cabdinaasir iyo isku duwe Cabdi iyaga laftigooda shaqo fara badan oo aan filayo haddii adeegan maanta yaa la heli lahaayeen ay ka fiicnaan lahayd bay qabteen. waxaan ku faraxsanahay xanuunkan inuu gobolka Mudug aafo badan ku yeelan waxa keenayana wacyigelinta iyo diyaar garowgii markii ugu horeysay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda Puntland iyo Galmudug ka kaashadeen shaqada noocaas oo la qabtay ayaa wuxuu ku yimid xanuunkan inuu yaraado. xarumaha karantiilka labada dhinac waa ka furan yahay aeroboortkan laftigiisa iyo kan Oshaaka laftigiisa waxaa jooga oo ka furan xarumihii karantiilka furdooyinka iyo meelaha laga soo galo gobolka Mudug xuduudihiisa laftigooda dhaqaatiirtu waa ay joogaan way geeyeen shaqaalihi xanuunkan waxa halka ka muuqata runtii mas'uuliyadda wasaaradda caafimaadku ay muujisay oo Puntland iyo Galmudug waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa doctorka iyo wasaaradda caafimaadka isagoo hadda u qareemayo adeegan inoo keenay. ugu horreyn waxaan mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'aala ee noo suurtageliyay halkan anagoo nabad inaan joogno. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa guddiga qaran ee ka hortagga iyo la tacaalidda cudurka COVID-19 iyo wasaaradda caafimaadka federaalka oo maanta na soo gaarsiiyey agab caafimaad oo lagula tacaalayo COVID-19 oo baahi badan ay u qabtay Galmudug dadkeedan runtii aad u saameeyay cudurkan COVID-19 wuxuusan shako jirin in COVID-19 wax badan oo saameyn uu dalka ku yeeshay
deegaanada iyo maamuladuna ay si kala nugul yihiin cudurkan saameyntiisa tahay galmudug ma lahan laab lagu baaro bukaanada cudurkaas qaba sidaas darteed waxaa aad noogu badan dadka ka cabanaya calaamadihii covid-19 sidaas darteedna baaritaano badan oo ay u baahnaayeen aysan helin maanta waxaa noo joogta diyaarad sambal badan qaadaysa oo ugu talagalnay in dhammaan waxyaalaha cabashada ka jira inta maanta laga gaaro in sambal loo sameeyo laakiin baahidu ma ahan in maalin kasta sambal la qaado baahidu waxay tahay in la helo laabkii lagu baari lahaa bukaanada iyadoo galmudug ay joogaan waxaan ka mahad celinaynaa 12kan item ee maanta soo gaaray u badan shaqaalihii la tacaalaya cudurka ay xiran lahaayeen oo bukaanka lagu shaqeyn lahaa waxaa weli naga dhiman qalabka u baahnaa bukaanka oo ugu horeeyaan oksijiinadii iyo ventilatradii ayagana waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala safarka kan ku xiga inay soo gaaraan dhammaanna dee waxaan isleenahay capacity iyo culayska guud ee wadanka haysta ayay ka mid tahay in meelo badan uu ka jirin oksijiinaas waxaan rajeynayaa dadka reer galmudug ii sheeg intii dawladda bas wax laga sugi lahaa dadka reer galmudug ee jaalidaha inay dadka ay la soo gaaraan oksijiinka inta ay heli karaan oo ay soo siiyaan waxaan ka mahad celinaa xarunta isolationka oo sidaan horeeto safarkan ku horeeyay loo yimid maantana shaqeynaysa bukaanadiina lagu adeegayo cadaado xarunta cadaado ee isolationka waxaan sidoo kale ka mahad celinaynaa xarunta isolationka dhuusamareeb ayadana shaqeynaysa laakiin weli oksijiinadii bukaanada ay u baahnaayeen daran aan la helin laakiin sida caadiga ah u shaqeynayso deegaanada kaleeto caduwaaq iyo balanbale degmooyinka ayakana ku yaala xuduudda weli maysa helin facility isolation laakiin way noo qorshaysan tahay waxaan rajeynaynaa dadka deegaanka jooga iyo shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda ka tirsan ee jooga deegaanadaas in ayakana xiriir ay la soo sameeyaan inta u dhow inta laga helayo in ayakana laga horgeliyo xarunta isolationka waxaan rajeynayaa cudurkan ilaahay inuu naga samata bixiyo dalkana sidiisa hore ilaahay inuu soo celiyo dhammaan cudurkan waxaa looga bixi karaa ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo u midooba si dadka wax lagu qaban lahaa iyo deegaanka iyo dalkaba aad u mahadsantiin